السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما أنت واحد صار فريستي إن ندين له ذاقو بوق مجلس اللي هذا سويالك أما تاريخ ذا يعلم القرآن بوق أصلا طبعا هذا دور بلاد كار أنا ندين شايفين أنا صابر نجدونه كارهان أصحابتي السيرة كحنا بوقنا الحمد لله ما أنت صار ماضي مركا إن شاء الله مقال كنيرة كوبن واحد كله ذاك دونا بوقا يمشي كير لهيدين يبوقا يوحى كورما يعد قرتي يسدوا كله طبعا توم بوقا بوقتها كميدا ونقاب بلاش أن كسين دونه أصحابتي كنا كحنا marka macluumaadka kooban insha Allah aan muqaalkan aan ku soo bandhigi doona markooda dib hadaan isweydiino saddex qodob baan kala qaadanaa markooda waxa isweydiino horta buugan muxuu ka hadlayaa buugan tabcan inta waxa uu ka hadlayaa taariikhda quraanka bilowga ilaa maanta waxaan ka wadaa tusaalahan kale marxaladii kala duwanaa ee taariikheed ee quraanka uu soo maray gaar ahaan qoristiisa kale taariikhda ay soo martay taariikhda ragga ilaaliyay quraanka iyo qaabka quraanka loo soo ilaaliyay ee qiraa'adka kala duwan 10 qiraa'o ee kala jira waxa ay kala yihiin ragga kala ilaaliyay todobada axruf ee quraanka ku jira waxa ay yihiin macnayaashooda iyo qiraa'adkan ay naqaano ee waqtigan jira gaar ahaan qiraa'adan qaanka ah ee dunka inta ugu badan isticmaalo xafsa can qaasim la leeyahay ninka xafsa yuu ahaa qaasimkaasi sayuu ahaa iyo waliba taariikhda cajiibka ah taasoo cadeynaysa 10 qiraa'o raggi soo ilaaliyay ee si faafiyay in marka ku dhawaad 7 ilaa 8 kamid aysan carab ahayn halkaas dabcan aad ka dareemi karto Soomaalideena marka la eego sababta maanta dabcan caalamka dadka quraanka ugu horeeya marka noqoto akhrintiisa waxa marka noqoto dabcan Soomaalida kalma hore ka jirta halkaas ka dareemi karto marka qiraa'adkan 10 ah laftoodu xataa 178 in raggi soo ilaaliyay ee sida u soo xiftay ee si faafiyay in 180 kamid aysan xataa carab ahayn iyo sidoo kale musaxafiyadii qadiimka ah ee taariikhdeena soo maray 14 qarni iyo sawiradoodii iyo qarni walba musaxafka jiray oo maanta hayno iyo sawiradoodii waliba xataa sawirada musaxafiyadii qarnigii koobaad labaad saddexaad xataa waqtigii saxaabadu noolaayeen musaxafiyadii la qoray oo qaar kamid ah aynu hayno iyo waliba xataa musaxaf la qoray oo birdhaweyd la ogaaday oo waqtiga uu rasuulku noolaa la qoray oo aynu maanta sidoo kale hayno dhammaan musaxafiyada iyo taariikh yar oo kooban oo mid kasta ku saabsan iyo sawiradoodii tusaalahaan oo kale kan hadda halkan idinka muuqda waa bariga ay waraqad soo baxday markii koobaad waa calligraphy-gii ugu horeeyay oo qarnigii shanaad la qoray oo xagga Ciraaq lagu qoray weeyaan waraqadu markii soo baxday markii koobaad ee farta quruxda badan quraanka lagu qoray weeyay iyo sidoo kale guud ahaan culumul quraanka inta ugu badan oo dhan tusaalahan noocyada tafsiirka uu qaybsamo iyo tafsiir walba kutubta ugu caansan magacaantooda raggii qoray waqtiyadii iyo qarniyadii ay qoreen iyo waliba icjaaska quraanka iyo mucjisnimada quraanka iyo inta uu qaybsamo iyo marka iyo nooc kasta oo baahan tahay kutubta aad ka helayso tusaalahan kale waqtigeena icjaaska quraanka kuwa cajiibka waxa kamid ah waa naxwaha quraanka ku jira iyo xagga balaaqada marka laga eegayo kutubta tafsiirka ee nooca ka hadlaysa ee magacaantooda ragga qoray iyo sidoo kale xataa kutubta noocaasa kitaab walbaaba kuwa ugu caansan mid kasta waxa uu ku fiican yahay midka kale waxa uu ka duwan yahay macnaha si kale hadaan u dhigo culumul quraanka oo dhameystiran oo qofkii doonaya inuu markaa ama kutubta si barto ama si akhristo oo kale meelihii uu ka heli lahaa oo dhan iyo magacaantoodii oo dhan qodobadaas dabcan marka kamid ah qodobada uu ka kooban yahay ee ugu xisaab badan buuguna wuxuu ka kooban yahay 13 cutub waana ilaa 300 oo page weyn dhowr page baa dheer adu marka celisahan waa 300 page intaas nadaan ka nimaadno buugan iyo macluumaadka uu ku saabsan yahay iyo waxa ku qoran haddana qodob kale aan u nimaadno oo ah buugan yaa qoray dabcan buugan cid kale ma qorin waxa qoray isla sheekheena siradan aan hadda aan soo turjumo xalqadii 140aad baan filaynaa marayo isla sheekha Yaasir Qaadi baa qoray sheekh Dr. Yaasir Qaadi sidoo kale qofka hadduu san aqoonin sheekh Yaasir Qaadi oo macluumaad yar kooban aan ka bixino dabcan sheekh Yaasir Qaadi wuxuu wax ku soo bartay jaamacadda Madiina intii u dhaxaysay 1995 ilaa 2005 10 sano oo digriigii iyo mastertiiba jaamacadda Madiina ku soo qaatay digriigiisuna wuxuu ahaa xadiiska iyo culumta islaamka sidoo kale mastertiisuna aqoonta ay ahayd sidoo kale PhD-dana 2013 uu qaatay isla aqoonta uu ka qaatay gaar ahaan wuxuu takhasus ku diyaariyay kitaabkan weyn ee Ibn Taymiyyah uu qoray ee 9 mujallada ee kaasoo loo yaqaano haddaan si yar kooban macnihiisa u sheego mideynta caqliga waxyiga iyo fitrada dabcan buugaas isaguna aad iyo aad u muhiim ah oo sidoo kale insha Allah mustaqbalka aan rabo inaan isagana aan soo turjumo سادرتيد بوكا طبعا ما دام أنا قاعد ترجمي هذا وحلا جاب قفك ونس فيديو خضر أدو وياته مركز كتاب دين كورمي ترجمي طبعا مركز بوك عادية يبوك دين كورمي مركز ترجمي سنة ويكل دوني سادرتيد ما دام إنكستون واحد بدن بأنا هينين معلومات يرى كوبنا عن يقول صعب سنة دان دين وذاكو طبعا أنا وهرت دين تيمادي لبض بوان برتا حاجة أحاديثنا إلا واحد كجاري بخاري إنكستون ولد مينين سدا كل كتب بدنا عقيدة وان مرصدي تفسير كانت سدا كل شيخ دير بان صدح شركة دمست أنت اسمك هذا واحد يقول شيء إن إيش معناها أساسيات الإسلام كأننا نقانو أنت أصلا واحد دير لغة إنجليش كون كفي عنها لبض سنة وجود بسنة طبعا كنال كنا بقولها مقالب بدنا أو إنجليش كبحة أو إسلامي جحيا سوق اللي تصلحنا كل الضوضاء إسلام ككريستيان كودحية هي مقالب بدنا في إنجليش كبحة لكن حاجة دين الإسلام
ka waramaya labadii sano ugu dambeysana kanaalkeenan 8 milyan oo jeer baa la daawaday saa darteed macluumaadkeena kooban aan igu saabsan inkastoona dee aqoon badan iyo wax badan aan lahayn haddana saasaan idinku sheegay ugu dambeynta haddaba dabcan buugga 3 qaab baad ku heli kartaa qaabka waxa weeyaan waa qaab software oo PDF ah qaabka labaad waa Amazon biyaala oo Amazon baad ka iibsan kartaa maadaama dabcan dad badan oo kanaalkeena daawada ay dibadda joogaan qaabka saddexaadna waa qaab haadha oo caadi muxuu isagoo buug caadi ah aad iibsan karto qaabka haddaan ka horeeyo software ee PDF ka kama dhigna dabcan PDF baa lagu soo dirayaa wada akhrisanaysaa laakiin mobile app ka Johar Academy aad kala soo degaysaa Play Store-ka markaad la soo degto app-kaas ee isdiiwaan geliso qaybta bookiska ayaad geli qaybta bookiska markaad gasho waa buugga ugu sarreeya ay ku qoran tahay sooyaalka Qur'aanka buuggan markaad iibsanayso dabcan numberka halkan idinka muuqdo WhatsApp-kiisa kala xiriirsan numberkan WhatsApp kaliya leeyahay call caadi loo soo wici karayo malaha WhatsApp-kaas marka la xiriirsan sidana marka waad ku iibsanaysaan marka iibsana marka qaab offline oo kala ah yaad ku isticmaali kartaan macnaha marka soo rabto inaad buugga akhrisato uma baahnid in internet furato sidaad ku akhrisan waliba qaab indhaha u fiican waan u diyaarinay quality-ga buugga dabcan aad iyo aad baan u dhowray maadaama dabcan buugta kale uu ka duwan yahay oo Qur'aan ka waramayo ayada Qur'aan ay ku qoran yihiin taasina waa sabab dabcan qaybta labaad oo nimaadno qofka markuu Amazon ka iibsanayo sababta uu ugu yar muuqdo xogaa inuu qaali yahay sababtu waxa weeyaan dabcan markii aan soo daabacaynay waxaan nidhi maadaama dabcan horta Amazon buugta lagu daabaco order based on demand baa lagu daabacay qofku markuu soo dalbado ee uu iibsado markaan baa qofka loo daabaca oo loo geeyaa macnaha inta la sii daabaco oo meel la sii dhigo sida qofka looguma geeyo laakiin qof kasta markuu soo dalbado markaan baa loo daabaca loo raraa loo geeyaa sadarteed waxaan nidhi markii aan daabacaynay waxaan dooranay horta in quality-ga ugu sarreeya buugga lagu dalaco waa marka labaad haddana buuggii wuu farabadan yahay waa 300 oo page haddana waa marka saddexaad maadaama ay sawiraan musaxafyada qadiimka oo kale sawiraan original maadaama ay ku jiraan qoraalada qaar maadaama color u baahan yihiin haddana color baa lagu daabacaya haddana waa marka afraad Amazon buugga markay iibinayso commission bay rabtaa inay saarato 40% bay saaranaysaa commissionkii waxa ku jira muxuu Amazon sidoo kale wadamada marka la geenayo cashuurtana way ku jirtaa isla Mareykankuna cashuur kale oo dheeraad ayuu sii saaraa dabcan waxa soo dhan marka la isku wada daro buuggii anigu aan ugu talagalay inuu noqdo $10 ilaa $15 aan ugu talagalay inuu noqdo marka waxa soo dhan lagu daray waxa uu isla tagay qiimo ah $45 dabcan marka geeskeena Afrika la eego waa aad iyo aad buu qaali u yahay laakiin waa sababta idin sheegay Amazon qof dibadda joogo oo kaliya ka iibsado qof dibadda jooga laga yaabaa 45 inay lacag iska caadi ah inaysan ula muuqanin qof laakiin Afrika jooga 45 dabcan waa lacag aad iyo aad u qaaliya marka qaabkaasina waa qaabka labaad oo Amazon qofkii gaar ahaan dadka dibadda jooga Amazon ka iibsan karaan sidoo kale qofka Amazon ka iibsanaya haddii uusan lahayn kaar international waxa jira qaab kale oo loo iibsan karo oo gift kaar ahaan oo kale ah loo iibsanayo oo qof kale adoo kaarkiis international ka isticmaalaya iibsan kartaa marka qofka aan kaar international lahayn arinta isla WhatsApp-ka kan aniga igala soo xiriiro ana ka caawin macnaha intuu lacagta uu ku iibsanayo intuu aniga caadi igu soo diro yaan anigu lacagtaas oo gift kaar ahaan oo kale uu ku iibsan karay Amazon oo iyo password baan siini password digits macnaha oo number baan siin kaas markaa ku iibsan qofkii raba inuu marka Amazon ka iibsado laakiin aan kaarka haysan isla WhatsApp-kan aniga igala soo xiriiro Amazon dabcan markaad ka iibsanayso koodhkaas aad ku qori doontaa macnaha markaad Amazon website-kooda dhex gasho ama app-kooda dhex gasho koodhkaas aad ku qori buugga markaa ku soo bixi doona haddii aadan koodhka qori karin sooyaalka Qur'aanka aad ku qori sooyaalka Qur'aanka markaa qorto ku soo bixi laakiin maadaama buuggu cusub yahay oo shalay uu la soo geliyay waxa laga yaabaa inuusan hore kugu soo saarin laakiin koodhka haddaad adeegsato buuggu kaliya ku soo baxaya ugu dambeyntii qaabka saddexaad buuggan ku iibsan karto haddaad doonayso isagoo haadha oo buug caadi aad doonayso dabcan 3 shaqo hor baan ku madbacada aan la xiriiray maadaama kuwaniga madbacadeenu aysan iyagu sida Amazon oo kale aysan u daabacaynin oo iyagu wuxuu ku soo baxaa order hal mar baad waxaad dalbanaysaa 1000 xabo ama 500 hal mar dalbanaysaa intaas la soo saari haddana qayb kala dalban maadaama sidaas sameeyaan dabcan 3 shaqo hor baan yaan la soo heshiinay waxay dhaheen marka muxuu ugu yaraan 20 cisho qaadanaysaa bay dhaheen marka waxa ka dhigan tahay bisha November dhamaadkeeda ayuu insha Allah u soo bixi doona marka qofkii ilaa bil ama bil iyo 10 cisho meelaha 40 cisho qofkii sugi karaana markaas buug u baahan sidaas uu ku sugi qofkii kale inta aan sugi karina isagoo ama Amazon buu ka iibsani ama qaabka muxuu softiga ah halka PDF ka halka lagu akhrisanayo ayuu ka iibsan karaa saa darteed daba qofkii marka buug haadha u baahan wuxuu la xiriiri bookshare dabcan numberkooda waa kan qofkii marka u baahan buug caadi oo akhristo inuu helo bookshare buu la xiriiri qof kastana meeshuu joogo waa loogu geen ugu dambeyntiina dabcan 10 qof buuggan aan hadiyaanta u siinayo waxay noqon doonaan 10 qof oo kanaalkeena ku xiran dabcan de managerta meel hadda inta ay kala soo xidhaan oranayo hebel laakiin muuqaalkan idinka daawanaya hadda qof comment uu ka soo bixin doona commentigaas wuxuu doona aado marka maanta waa 50 ilaa bari waa 50 ka bisha ilaa kowda inta u dhaxaysa 5 cisho
yaan maalin kasta dad baan usoo jawaabi doonaa qofkaa marka aan usoo jawaabo ku dhaho emailka igala soo xidhiir yaan siin doonaa insha allah 10 qofna saasaan aan ku siin doonaa laakiin haddaba waxaan ku dari lahaa 10 qof 3 qof ee ugu horeeya waxaan jeclaan lahaa inaan hadda aan halkan aan kasii sheego 3 qofna waxay noqon doonaan 3 qof oo dabcan muuqaalo kala duwan maadaama aan YouTube-kan soo geliyo taxanaha aan ugu jecelahay maadaama uu siirada yahay 3 qof oo siiradeena ku taxan oo si joogto ah ugu xiran ay noqon doonaan haddaan isweydiiso 3 qof sidee baad ku garanaysaa dabcan siirada oo marka daawanaysan oo kale dadka aadka ugu xiran waxaan ku kartaa dadka muxuu ahaa hadii jeer commentiga ka soo bixiya marka qaar sida gaarka ay la soo xiriira saasaan ku dareemi karaa marka 3 qof oo kale oo wax kale oo aqoon oo naga dhaxaysa aysan jirin kaliya meeshaan isku baranay uu yahay YouTube-ka iyo siirada uu yahay yaan jeclaan lahaa inaan iyagana aan marka koowaad halkan kasii sheego marka 5 cisho soo harsan 7 qof kale yaan insha Allah aan siin doonaa beri oo kale dad baa isjooga saa dambe ilaa kooda bisha laga gaadhiyo 3 qof marka waxay noqon doonaa 3 qof oo kana mid ah waliba imtixaankii sare ee sanadkii hore qaadnay ee ku jiray ay noqon doonaan 3 qof marka waxay kala yihiin Adam Malabow oo jooga Muqdisho iyo Cabdiraxmaan Maxamed oo isna jooga Jigjiga iyo sidoo kale Mahad oo ku magac dheer Mr. Adan oo isaguna jooga Finland marka 3 qof aan jeclaystay inaan magacoodana sheego noqdaan marka 3 qof ugu horeeya ee buug hadii aan u siinayo dabcan hadda waxa laga yaabaa in qaars dhahan wala si kale saaxiibo yihiin dabcan saaxiibtinimo kale iyo aqoon kale naga dhaxaysa ma jirto oo ka ahayn inaan halkan iyo siirada iyo wanaagga aan isku baranay markaas 7 qof kale insha Allah maalin kasta dhowr qof aan usoo jawaabi doonaa qaybta reblada oo soo gali emailkan soo qoro waxaan ku oran emailka igala soo xiriira markaas halkaas muuqaalka inuu ku dhan yahay dhimanteed waan salaamayaa